ka samee lacag aad iyo aad u fara badan meme coinska. Waqti xaadirkan la joogo waxaa aad trending u ah meme coinyada laga sameynayo fiidiyoyaasha TikTok viralka ka ah kuwaas oo qaarkood gaareen 400 milyan market cap. Waxaa laga sameeyay lacag aad iyo aad u fara badan. Sidoo kale fiidiyogan waxaan idinku bari doonaa sidee looga trade gareeyaa meme coinska inta aan la keenin exchange-yada waaweyn, sidoo kale platformyada la isticmaalo botska iyo waxyaabaha lamid ah. Inta aan guda galin muuqaalkan waxaan idinku codsanaynaa inaad channelka subscribe gareysaan, muuqaalkan inoo like gareysaan. aad iyo aad ayaan mahadsantihiin. Okay, haddana waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabaha u baahan tahay sida trader u noqoto. Number 1 horta waxaa u baahan tahay Binance account. Binance account haddii aadan haysanin way adag tahay inaad trade gareysid meme coinska. Okay, Binance account loo set gareeyo cashir kale ayaan dib u gareeyaa maxaa la dhigan doonaa. But maanta waxaan rabaa inaan ka hadalno Binance account waa haysataaba. So what else u baahan tahay si aad uga trade gareyso meme coinska. Okay, waxaa kaloo u baahan tahay number 1 Phantom wallet. Okay, Phantom aan baahanahay. Linkiga anigu hore ku soo baxayo ku dhufanaysaa Phantom, then waa soo download gareynaysaa. So download marka aan dhahno automatically waxa uu inuu soo galayaa meeshan. Phantom ka aad already way download gareysan yahay. So marka download ayaa taabanaysaa oo soo download gareysanaysaa, then waa install gareynaysaa. Marka soo download gareysatid then waa install gareynaysaa. After that kadib maxaa la dhahay meeshan ayuu ku soo galayaa, listigan ayuu ku soo galayaa. After marka kadibna pin ayaa saaranaysaa. Pin meeshaas ay qoran tahay ayaa saaranaysaa. Waxa uu ku soo fuulayaa meeshaas. Okay, and what's the next step? So marka next step waxa waaye how u create gareyn karaa wallet sidee u create gareyn karaa. Simply adi marka ku dhufato wuxuu ku soo qorayaa create meeshaas oo kale ku soo qorsan oo kale ku soo qoraya page kan oo kale ku keenayo. Then waxaa sameynaysaa haddii wallet oo Phantom haysatid inta ayaa waxaa sameynaysaa import private key ama import phrase key ayaa sameynaysaa, yacni halka inta ka soo gashanaysaa. Okay, laakiin anaga hadda ma haysano maxaa sameynaynaa wallet cusub ayaa create gareynaynaa. Okay, create ayaa leenahay create new account. Hadda marka wuxuu ku dhahay hadda wallet-kaaga ma haysto waxa oo yacni recovery visa waa wallet-kan hadduu kaa dhumo waxaa jiro phrases ama erayo lagu soo celiyo ama waxaa jiro maxaa la dhahayay recovery phrase Allah. Okay, kuwaas marka si aan u helno waxaa taabanayna new. So waa kanaha marka recovery phraseska lagu sheegayo waa kana I have saved. Marka yacni waxaa sameynayaa waa save gareynayaa kuwan. Sidee ku save gareynayaa? Waxaa sameynayaa screenshot ayaa ka qaadanaya. Tusaalahan oo kale ama screenshot ka qaadanaya ama qaabka kale aad adiga ku save gareysanaysid adiga yaqaan. Lacala hadii oo wallet-kan ka dhumo recovery phrases kan ayaa u baahan doontaa. Okay, create ayaa leenahay. Okay, yacni hadda waxaan joognaa meesha oo mainka oo walletska haddaa rabo inaa maxaa la dhahayaa lacag aan kusoo shubo inta receive-kan aan leeyahay. Haddaa rabo inaan wax diro, haddaa lacag inaan isku bedel rabo, haddaa inaan buy gareysto. Buy-gan anaga option-kan dadka Soomaaliya joogo uma shaqeynayo. Because of wuxuu u baahan yahay ma support gareynayo. So marka waxaan sameynayaa how marka aan ku ogaan karaa. Tusaalahan kale inta jooga sidee private key-gayga aan ku ogaan karaa. Private key-gayga waxaan ku ogaan karaa inta ayaa taabanaysaa, then meeshaas edit-ka ayaa taabanaysaa. After that account-iga create gareyn waa kana account 4 then waxaa leedahay show private key. After that enter a password to unlock your recovery key. So password ayaa igu jiro marka password-kaas ayaa gelinayaa. waxyaabaan ku weydiinaya jagaas ka saaraysa waa kana soo jeedin. Marka waxaa u baahan tahay Phantom wallet-kan inaad u sameysid password-kaas wuxuu ka saacidayaa qof walba inuusan iska soo gelin oo computer-kaaga hayo. So password-kaas sidee loo set gareeyaa isigana waa kanaha. So waxaa sameynaysaa inta ayaa imaanaysaa, inta ayaa tegaysaa, then meeshaas ayaa waxaa change password waxaa gelinaysaa password-kaaga. Current password markaas ma lihid laakiinse new iyo confirm oo kusoo qora labadaas aad gelinaysaa. Laakiinse ani already waa haystaa. So marka maxaa la dhahayay adi hadda password kuguma xujeenaya maadaama uu password ku leeyahay, laakiinse waxaa fiican inaad password ku set gareyso. Okay, next up marka Phantom wallet waxaa haysanaa. Okay, aniga waxaan idin tusayaa Phantom wallet-kayga waxaan isticmaalaa kan waxaa ku jirta lacag $22. Okay,
so marka sidee ayaan ku create gareynayaa podkii ama platformka ku create gareyn lahaa. Next up waa platformka. Okay, let's go. Platformka ku create gareynayna waxaa la dhahaa Axiom. Waxaa jiro platformyo kala tiro badan sida Plex jiro, sidoo waxaa jiro Futon jiro oo ay badan yihiin. So marka anaga Axiom ayaan baran doonaa videoga ugu horeeya. Okay, Axiom markaan imaano, Axiom ayaa ku qoreysaa Axiom Trading. Axiom Trading ayaan ku qoraynaa. Okay. Axiom Trading bot waaye, and then wuxuu ku keenayaa meeshaan. Kan ugu horeeyaan ku dhufanaynaa. Waa kana page-ka marka. Haddeertaan inta ayuu ii keenayaa. Haddii aan maxaa la dhahay Axiom aan joogto inta ayuu ku keenayaa. So Axiom wuxuu u baahan yahay sidaa ujeediin invitation code. Waa inuu qof Axiom isticmaalo uu ku soo invite gareeyo. Waa fahantaan umaleynaa. So tusaale ahaan oo kale aniga maxaa la dhahay waxaan soo dhigi doonaa invitation code-kayga hoose idiin soo dhigi doonaa. Waxaa waaye waa Hersi ayaa halkaas ku qoreysaa. Then meeshaan emailkaaga ayaa ku qoreysaa. Tusaale ahaan oo kale aniga email cusub ayaan gelinayaa. Intaasoo keliya ayaa u baahan tahay. Meeshaan waa emailkaaga ayaa gelinaysa, intana invitation code. Kadib sign up ayaa leedahay marka. Kadib wuxuu ku weydiinayaa code oo lagu soo diraayo emailkaaga. Then codekaas ayaa inta gelinaysaa. Okay, kadib markii aan codekaas gelino wuxuu inoo soo qorayaa password waa inaan u sameysanaa. Okay, so password ayaan iska gelinaynaa. Okay, passwordkiina waa gelinaa marka. Haddeertaan waxaa inoo kacsan so asigana wuxuu leeyahay platformkaas oo kale wuxuu leeyahay recovery phrase-ka inta ayaa taabanayna. Recovery phrase-kan inta idinkaga muuqdo ayaan isticmaali doonaa. Okay, so kanna waa inaa save gareysid. Very important waa in case waxaa waa emailkaaga iyo waxyaabahaas inaa wax kabaysa laga yaabaa. Recovery phrase-kan inaad haysato aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. So kadibna waxaan sameynaynaa continue ayaa leena. Sidoo kale maxaa la dhahay waxaa ku soo saaray inta maxaad yacni lacagta aad deposit gareysanayso waa Solana. Then QR kan ayuu ku siinayaa address waa. Address-kan waa wallet address-ka uu ku create gareeyay maxaa la dhahay Axiom-ka. Okay, Axiom-ka wallet-kan ayuu ku siiyay. Then waxaa sameynaysaa copy address leedahay meelaha dhiganaysa. Address-kan very important waa. Because waa meesha lacagta aad kusoo diri doonto hadhowti markaa Axiom-kaaga aad gelaysid. Okay, kan waa copy gareysanaysa asigana meel fiican aad dhiganaysa. Kan waxaa waaye waa wallet address. Kii horena wuxuu ahaa phrases-ka oo yacni lagu soo xasuusanayo waxaa la dhahaa recovery phrase Allah. So labadaas aad iyo aad ayaa ugu baahan tahay emailkaaga iyo passwordkiisa intaas inaad xafidaato Axiom-ka very important waa. Okay, then waa kana main Axiom-ka markaa soo gashid meesha ku keenayo inta waay. meeshaan ku keenayo. Okay, marka waxyaabaha maxay ka yihiin marka adi intan waxaa ugu baahan tahay 3 things ayaa ugu baahan tahay. Saddex shay ayaa ugu baahan tahay. Shayga koowaad waxaa waa pulse. Marka trade gareynaysid meeshaas pulse ay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa. Inta wuxuu kaaga soo saarayaa lacagihii isla second-kaas la soo geliyay oo la create gareeyo inta ayuu kaaga soo saaraya. Sidaa ujeedada lacagtan waxaa waaye 5 second ayaa ka horeeya la create gareeyay 3 second. Haddaa meeshaan saan taabto 0 second waa ujeedada lacagtan haddeertaan la soo geliyay. Okay, meeshaan marka muxuu ku soo galayaa waxaa la final sketch waa lacagaha market cap-kooda yacni momentum badan helay oo qaybtan ka soo gudbay. Qaybtan lacagaha sida ujeedin market cap-ka 4k, laakiinse meeshaan waxaa soo galaya marka ay market cap-kooda 30 ilaa 40 uu soo gaaro graduate markuu gaaro. Qaybtan haddii uu yacni ka baxo qaybtan graduate-ka uu gaaro ama migrated Allah. Qaybtan waxaa waaye lacagihii market cap-kooda uu gaaray 90k ilaa 80k meelahaas lacagii uu gaaray market cap-kooda inta ay imaanayaan. Inta ayaa laga soo gelinayaa kowgii. Then meeshaan ay imaanayaan markii 20 ilaa iyo 40 ilaa 50 ay imaado. Then meeshaan ay soo wareeganayaan markay imaadaan maxaa la dhahay wixii kabtan 50 oo maxaa la market cap. So marka pulse iyo tracking wallet trackers
tracking wallet waa very important marka la joogo in trading. waxaa jiro dad yani aad iyo aad oo u ah famous markay imaado mimid coin trading, kuwaasoo kale waalidyadooda waa la yaqaana, waalidyadooda ayaa la track garaya. So meeshaas wallet management ayaa ku dhufanaysa import walletka inta ayaa gelinaysa wallet addresskiisa, kadib magacaaga ku sabgaranaysanaysid iyo emoji oo hadhow aad kusoo xasuusanaysid marka chartiga aad ku jirtid qofkan yani soo wax gadanaya aragtid, si aad yani emoji ugu soo xasuustid emojigaas ayaa saaranaysa. Okay, wallet badan ayaa track garay kartaa, hal wallet maaha 100 wallet ayaa track garay kartaa. Okay, what else ayaa u baahan tahay marka? waxaa kale u baahan tahay Twitter tracker hadeertan markii la joogo Axiom-ka waxaa qasab ah inaad 5 Solana kusoo shubtid si uu Twitter trackerka kugu furmo. Twitter tracker maxaa waaye marka? Twitter tracker waxaa waaye waa in yani aad la socotid newska update-ka ee Twitter la soo dhigo. Tusaale ahaan kale Trump hadduu wax soo repost garay isla second-kaas Twitter tracker-kan ayuu kaaga soo muuqanaya. Elon Musk hadduu wax repost ka bixiyo ama post uu soo saaro isla second-kiiba waxay kaaga soo baxayaan meeshaas. Okay, Twitter tracker asigana waa fahanay. So what's the third thing marka? sidee lacag loogu soo shubaa? lacag marka aad kusoo shubanaysid waxaa sameynaysaa meeshaas ayaa soo furanaysaa deposit ayaa sameynaysaa. Deposit markaa dhahdid then address-kana copy garanaysaa. Create address-ka markaa copy garaysid then waxaa tagaysaa Phantom-kaaga lacag. tusaale ahaan kale anaa kayga $22 ku jirto, soo lacag arba inaan kasoo diro. sidee ugu soo diraya? meesha send ku qorantaad taabanaysaa, then waxaa ku diraysaa JNK Solana JN ayaa isticmaalaya. Okay, addresska waxaa lagu dhahay recipient addresska oo aad rabtid inaad lacagta ku dirtid. addresska data soo kobiyey inta best ku leeyahay, kadib lacagta ayaa gelinaya. Okay, tusaale kale 0.1 fahanti waa $12. then hadda maximum lacagta inaad wada gedisid rabtid halkaas ayaad maximum taabanaysaa, next ayaa dhigaysaa. Okay, marka waxaan rabaa trick oo aad very simple ah inaan idin baro. trickaas waxaa waaye yani Phantom wallet-kaaga iyo waxaa qurux badan iyo Axiom wallet-kaaga inay hal xaba ku ahaadaan oo aadan hadhowti lacag warwareejinin. next haddaa dhawaan lacagtan already waa iga baxaysaa. Okay, marka trick oo waxaan idin barayaa oo aad iyo aad idin yani idin muhiim ah. Okay, trickgaasi waxaa waaye Phantom wallet-kaaga iyo Axiom wallet-kaaga inaad hal xaba ka dhigtid, ma fahanti? So sidee uga dhigi karaa marka? waxaan haystaa hadda Axiom-kan waxaa waaye private key oo wuxuu leeyahay Axiom-kan waxaa soo gelinaya private key-ga wallet-keyga. tusaale ahaan kale wallet-kan ayaan haystaa, wallet-kan $22 ku jirto, waxaan rabaa inaan iyada naftarkeeda ku trade gariyo Axiom-ka. Okay, sidee ayaan uga trade gareyn karnaa? Okay, iyadana waxaa qurux badan inaan cashir kale ka dhigno maadaama inuu video sii dheeraado indiidaayo. taasna waxaa waaye video kale ayaan ka sameyn doonaa. Okay, marka next up waxaa waaye waa trading bot. tusaale ahaan kale hadeertan coin-kan oo kale inaan trade gareeyaa rabaa, waa ku dhuftay trading bot. maxaa waaye marka? haddaa rabo inaan coin-kan wax ka gato instant buy ayaa leedahay. meeshaan presets ayaa jiro. presetska waxaa waaye waa haddaa lacagtan ku dhufato waxaan gadanayaa 0.01, ma fahanti? isla automatic waaye within a blink of eye. Okay, sidoo kale wuxuu leeyahay gas marka maxaa waaye marka? gaaska tusaale ahaan kale gaaska raba inay edit gareeyo presetska tagaya. presets meesha soo qoran tahay presetskaas hoostaas ayaan ku dhufanayaa, then meeshan ayuu keenaya presetska oo kuwana. marka buy marka aan joogo slippage waxaa la jira. marka slippage waxaa waaye slippage-kaas mar walba uu lacagtaada badan yahay trade-kaagu isma xirayo, ma fahanti? tusaale ahaan kale badanaa slippage-ka waxaa laga dhigtaa inta u dhexeysa 10 ilaa 30 inta u dhexeyso, maadaama lacag yar aan ku trade gareynayno waxaa waa 20 kusii daysanaynaa. priority fee waxaa waa lacagta uu maxaa la dhahayay kaa rabo bot-kana ku trade gareynayno lacag kaa rabo. laakiin lacagta waa aad iyo aad yani waxyaabo ku fiican yahay kamid lacag aad iyo aad u yar ayuu kugu jaj gareynaya. tusaale ahaan kale meesha priority fee waxaad ka dhigi kartaa 0.301 oo Solana. lacag aad iyo aad u yar waa $1 camal waaye malina I don't know. so proprietary waa lacagta yani markaa trade aad ku dhufatid uu maxaa la dhahayay qofka trade-kaaga in si immediate ah lagu transfer gareeyo. tusaale ahaan kale lagu fuliyo waxaa يعني sabab u ah bribe-kan waxaa fiican inaad 0.01 ku daysid haddii aad lacag badan ku trade gareynaysid, hausan 0.001 usa ka yaraanin.
sababtoo ah mar walba aad kelig ku dhufato trade isla markii uu ku fil garaynaya isla markii dadku ugu horeeyo oo maxaa la dhahay trade-kaas oo galaya ka dambanaysa. Okay, laakiinse mar walba kan loo yahay xoogaa trade-ka transaction-kiisa in la approve gareeyo waqti waxay qaadanaysaa waqti yar. Okay, kan asiga naftirkiisa maadaama lacag yar aan ku trade gareynayno 0.0001 aan ka dhiganayno. Okay, sidoo kale waxaan kaloo u baahanahay math protection-kana muhiim ah isigana mar walba math protection waxaa samaysaa on selka imaa marka selka asiga naftirkiisa maxaa lahay asiga wax yar ayaan ka badinaynaa 30 oo kale ayaa ka dhigaynaa priority-ga 0.30 hal. Okay, kan 0.30 hal. Okay, intaas ka dhiganaa math protection-kana on ka dhiganaa then waa save gareynaynaa. Okay, let's go. kan marka qaabkee ayaan rabaa asigan inaan ku bedelno. kan waxaan ku bedelin karnaa halkaas meeshaas calaamadaas taabanaysaa dan lacagaa ku trade gareynayso taaban karaa anaga 0.08 oo kale ayaan gashanayaa inaan ku trade gareeyaa raba 0.1. Okay, waaye meeshaan wanka ay 0.0 okay sorry meeshaan 0.005 iga dhig meeshaan oo kale 0.15. okay, selska marka haddii aan يعني حصل قرينا شهران وكله ماشي 10% 30% 50% هي 100% انت سايف كل قرينا. اوكي انت نتيك اياس كسارنينا. اوكي هدي اقرب يعني سان وقتريد قرين كرا waxaan sameyn karaa marka trade sameynayo waxaa sameynaa 0.1 automatic transaction ka hada veelada video web kas lacag uma jirto hor ayuu ka fulinayaa laakiin waqtiga xoogaa waa laga horgalayaa trade kama fahanti. laakiinse waxaa jira bots la isticmaalo aniga botka telegram bots oo la isticmaalo kuwaas ka saacidayo in maxaa la dhahay ku trade gareysid axiom si yani very maxaa la dhahay fast waa botyaal يعني waxaa jira very fast kuwaasna waxaan ka dhigi doonaa videogan xigo insha Allah. So marka waxaan idinka rajeynayaa muuqaalka xigana la socotaan.